garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa si ballaaran waxaa loogu soo dhoweeyey doobabka dhaqanka ee mudulood ee u yimid magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan xalinta dhacdadii ka dhacday deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe xubnaha doobabka dhaqanka ee halka yimid waxaa hogaaminayey imaamka mudulood imaam daahir imaam maxamuud imaam cumar waxaana qayb ka ah xubno kala duwan oo ay ka mid yihiin boqor cabdullaahi geedi shaboor iyo sidoo kale nabadoon maxamed cabdi shiddo nabadoon muxiidiin xasan afrax odayaal dhaqan siyaasiyiin xubno horey xilal u soo qabtay iyo qaybaha kala duwan ee dhaqanka waxaana ugu soo dhaweeyay odayaasha dhaqanka ee gobolka hiiraan qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo si diiran ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee magaalada beledweyne xubnaha ayaa waxaa loo galbiyey gudaha magaalada beledweyne halkaas oo la filayo in kulamo kala duwan ay kula qaataan odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada reer hiiraan gaaraan magaalada beledweyne kuwaas oo ay kala hadlayaan xalinta dhacdadii ka dhacday deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe maxamed ible universal TV beledweyne Thank you.